oo partner la ah oo isaguna insha Allah kala qayb qaadanaya. Your Excellency, Mr. President, Your Excellencies, the Parliament members and honorable ministers, my dear brothers and sisters of Puntland. Daman madaxda Puntland. Daman madaxda Puntland, madaxweynuhu ugu horeeyo iyo madaxdiina kale oo ka soo qayb gashay shirkan. waxaan ku soo jeedinayaa salaam diiran waana soo dhaweynayaa. Good morning, and I'm very happy to visit Galway again. This is my fourth visit to Galway. aad baan ugu faraxsanahay inaan Galway imaado. waxaan rajaynayaa inaan noqon marka koowaad oo aan imaado. Before and during the process of implementation of Bosaso Airport, I visited Galway and Puntland several times. muddadii aan ka shaqaynayay airportka Bosaso oo aan wadnay dhowr jeer baan imi oo aan Galway soo booqday. With the great leadership from Mr. President and from the Puntland government, also with the strong support from Puntland people, we have successfully implemented the Bosaso International Airport and ahead of schedule and with high quality. kaalmadii aan ka helaynay madaxda Puntland, madaxweynuhu kale ugu horeeyo iyo shacabka Puntland oo garab taagnaa, waxaanu ku guuleysanay airportkii Bosaso inaanu meel marino oo weliba aan gaarsiino heer lagu farxi karo dhamaystirka wanaageeda. And the most important experience for us, for our team, is that we really enjoy great support from the government and the hospitality, friendship, shown by Puntland people, really make us very grateful and make us feel like at home. We really feel like we are family members to Puntland people. aad waxaan ugu faraxsanahay inaan caddeeyo in dowlad iyo dadweyneba si wanaagsan loo soo dhaweeyey oo intii aanu joognay Puntland aan ka shaqaynaynay aanu ku faraxsanayn ayna la ahayd dad gurigoodii inuu joogaan. And encouraged by this friendship, by this brotherhood, and also encouraged by the eagerness of Puntland people to develop, CCECC is ready, to contribute more for the development of Puntland. markii aanu aragnay sida dadku yahay, sida dowladdu tahay, saaxiibtinimadana dhex martay, waxaan ku faraxsanahay inaan idiin sheego inaanu haddaanu CCECC nahay aanu sii wadayno howlaha waxqabadka leh ee ku saabsan gaar ahaan ku saabsan kaabayaasha dhaqaalaha gaar ahaan. And we are not only going to continue the building of infrastructure for Puntland State, we are also going to invest, for the developing of natural resources for Puntland State. maaha oo keliya inaanu kaabayaasha dhaqaalaha doonayno inaanu idinla dhisno oo ay meel maraan, waxaanu doonaynaa in horumar laga gaaro khayraadka dabiiciga oo dalkiina hodanka ku yahay. Today we are here to celebrate the ceremony for the commencement of the Galway A Road, and this is a part of the contribution on infrastructure project we are going to do for Puntland State, in the process of developing natural resources, and we are going to do more, including later on another ceremony in Galkayo for the airport. waxyaabaha aanu wadno oo maanta halkan aynu uga dabaaldegayno
oo ay tahay wadada isku xidha Garowe iyo Eyl waxay ka mid tahay waxyaabaha aan doonayno in aan sidoo kale raacino wax ka soo bixi kara khayraadka dabiiciga ah mid kalena waxa aanu haatan ka furi doonaa oo aan u tegaynaa magaalada Kalkaxay. Yeah, we have set up an office in Garowe, and we have nominated the management team for the operation here. And at the same time, some time ago, we have sent our technical staff to have a site visit from Garowe to Eyl. So we will now work on the detailed survey and design of the Garowe and Eyl road. And we will meet different communities to gather and also consult with government so we can determine what is the most optimized alignment or the design of the road so we can deliver a satisfactory road to our people in this region. waxyaabaha aan ku dhaqaaqayno waxa ka mid ah inaan Kalkaxay ku leenahay fariisin waxaa imanaya guddi farsamo oo iyaguna hawsha qabanaya waxa ay booqan doonaan Eyl waxa ay markaasi samayn doonaan designkii iyo qaabkii iyo hanaankii la isku raaci karo uguna wanaagsan oo aan u samayn karo. So I want to assure you, we will work very hard to deliver good work to our brothers and sisters in this region. But of course, the work will be implemented phase by phase. sidaas darteed farxad weyn ayay noo tahay inaan la shaqayno wax la qabano ama wada qabsano walaalaha iyo reer Puntland oo aan hawl qabo. And we also understand there are going to be different challenges in front of us. But we are quite sure if we work together hand in hand, we can, we can deal with all the difficulties we are going to face. And if we put our efforts, definitely we can create a better and more prosperous future for people in this region and for whole Puntland state. intaa waxaa dheer oo aan ku dar lahaa in aynan xaaladda jirtaa ahayn mid dhibaatooyin waa iman karaan wayna jiraan waxaan u baahannahay wadajir inaynu kaga hortagno sidii dhibaatooyinkaas iyo caqabadaha iman kara aynu uga guulaysanahay waana ka guulaysan doonaa insha allah oo waxaan rajaynayaa inaynu wadajir ku lahaano. So we will continue to look for your support, and we will continue to enjoy working with you as family members. Thank you very much. Thank you. kelmad guud baan u dari lahaa maaha inaan wax cusub hayo laakiin shirkadani inta aan ka ogahay waa shirkad weyn Jabuuti waxay ka qabatay wax weyn oo ay ka mid yihiin dekedaha iyo xadiidka treenka isku xidha aad bay u badan tahay waxa weeye shirkad aynu ka shaqaynayno madaxda Puntland oo madaxweyne ugu horeeyo oo lahaa fikradda ah in aynu kaabayaashii dhaqaalaha ku dhisi karno oo keliya inaynu adeegsano khayraadkeena dabiiciga waxa weeye fikrad cusub oo aan hore u bixin oo macno leh oo aynu filayno innagu ma haysano malaayiin iyo xoolo badan saasa waxaa ku dhisnay inaynu wax ku qabano ay inoo noqon karto innagoo isdhaafsanayna wax oo waxaanina waxna inoo qabsoonayn waxna ku bedelan khayraadkeena la soo baxay mar kale khayraadka soo saarideeda
waqtigoodu waxay ku xiran yihiin awoodda aynu ka helo dadka farsamada yaqaan ama ciday nala joogto oo ECC ay ka mid tahay waa mahadsantihiin aad u mahadsan yahay Siciid iyo Alan oo ka horreeyey iyo macluumaadka su'aashiina ay ka siiyeen haddana waxaan u yeerayaa wasiirka howlaha guud dowladda Puntland Mudane Cabdirashiid Maxamed Xilsi isagana fariinta ku dhigay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا waxaan salaamayaa madaxweynaha dowladda Puntland, madaxweyne ku-xigeenka, guddoonka baarlamaanka, golayaasha dowladda, isimada islaamciisa u horeeyo iyo dhammaan saraakiisha dowladda, ciidamada qalabka sida iyo shacabka kala duwan dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. aad iyo aad baan ugu faraxsannahay munaasabadan maanta lagu daahfuraayo wadada ay garoowe insha allahu oo laamiga ah waa farxad weyn ilaah baa ku mahadsan waa mashruuc aad u ballaaran waa dhul bixin oo waddo loo maro la garan waayo madaxweynuhu saad la socotaan wuxuu ballan qaaday bilowgii iyo dowladdiisuna laba arrimood in xoogga la saarayo biyaha iyo kaabayaasha dhaqaalaha labadiiba meel fiican bay marayaan insha allahu hadda waxaa socda waa waddadii saddexaad inta hadda gacanta lagu hayo waddadii daahir meel fiican bay maraysaa waddadii garowe gaalkacyana waa bilaabatay waddadii eyna daahfurkeedii maanta u fadhinaa sheekh maxamuud wuxuu yidhi aniga reer eyla waxaan u malaynayaa maanta qofaan reer eyla ahay inuu sahalkan jiro aad baan ugu faraxsannahay mashruucaas iyo kuwa kale insha allah muddada yar oo hoggaanka madaxweynuhu systemkan ugu hayay garoomada labana waxna waa dhammaadeen waxna waa gabagabo kii kalena maantaa lagu wajahaya isagana in la bilaabo marka hadda 3 garoon iyo 3 wado wax fudud ma aha wax weyn oo dalka ku soo kordhay mana filayo in intaa looga harayay howlo badan oo kale oo horumar ayaa socda wax allaala waxaynu qabanay ama garoomaha ahaad ama jidad ha ahaad ama horumar kale ha ahaad ama waxbarasho ha ahaad waxaa aas-aas u ah oo dhammaantood ay ka duulayaan waxaan ilaaway dekadii hadda la soo saxiixa iyadana ku dara waxaan kaloo iyaduna insha allah rajo badan ka qabnaa garacad nafteeda wadadeeda iyo garoonka ayadana waa lagu wajahaya alxamdulilah 3 sano iyo bar saqlaha dowladdu halkaasuu maray insha allah waa dhammaystira in la dhammaystiro dhammaan mashaariicda bilowga kuwa socda iyo kuwa hadda la bilaabayo oo aan isugu tagno amniga xaajino oo aynu yar iyo weyn inagoo asumad iyo gobolla kala lahayn aan gacanta saaran waxaan u malaynayaa inaynu isku raacsannahay dhab iyo dhab baa maanta munaasibadana waxay qalbiyada ama wixii la soo qabtay ha ahaato ama waxa hadda lagu wajahan yahay ha ahaatee qalbiyada shacabka reer Puntland iyo reer Soomaaliyaba arrin raad iyo taariikh ku leh mustaqbalkoodana anfacaya aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa mudane madaxweyne aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waxaan u malaynayaa madaxweyne ay u dhaweynayaa marka dhab iyo dhab baan ugu faraxsannahay ina soo dhaweynaynaa ilaahna waxaan weydiisanay amni iyo ammaan iyo wadajir aan ku dhammaystirno haddaan intaan raaciyo qolada CCICC maalintii dowladda la dhisay waftigii ugu horreeyey oo jabuuti aaday oo madaxweynaha la socday baan ku jirtay waxaan tagnay meeshii ay ka samaynayeen tareenka waxaan aada ula yaabnay nimankaas
حتى قلب كأي وحكوة حقيقية وهو بدنا قلب ما نورا وقوة عنده مشينا للتورنات قلب وين عصرية كمان هذا هو كمبني آبوين ولا يرون حكوكم بيا إلا بقية تون كمبني ما يروق عن تصاري هذه أقول الصدر على مدحونا وحدود بدنا كذا هالشدي إن من كاسي إنه مرة أي سكوار إنه بطلة كلام كلام مية هذا لو مشروع له بلابا وأنا القراءة واحترك لي وحقبت كذا هذه ممكن صورنا هذه نسوي ويننا أو شرنات يكون صار إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزير عبد الرشيد ومع سيد وزير دولة جود وحقبت الكارياش دقالها garoomada Puntland marka aan tirinayno oo madaxweyne Cabdiweli uu hormuudkina ku yahay Laascaano iyo Qabdo Garowe iyo Boosaaso dalkacyo maanta aan ku wajahanahay waa shanta wadooyinka magaalooyinka la dhex mariyay kaligeed lacagayaashii laga sameeyay dalkacyo wasiir Cabdishiid waa iska hormaamay 53 ahaayeen marka laga reebo 13 wado oo laamiga guud ahaan laamiyada laga sameeyay Puntland 83 ceelasha loo qoday 69 ceel guud ahaan inta aan anigu hadda gacanta ku hayo xafiiska madaxweynaha waxaa jirtay taariikh aan barnay loo oran jiray taariikhdii kacaankii warshadaha wuxuu madaxweyne Cabdiweli inuu ku hogaaminayaa kacaankii kaabayaasha dhaqaalaha madaxweyne waxaan leenahay kacaankaas Allah ku guuleeyo anagana ku difaaca anagana waxaan hadda u yeerayaa gudoomiyaha baarlamaanka Puntland mudane Axmed Cali Xaashi بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وقورين مدحوينها مدحوينك بدونك برلمانك وزير رضا إسلام عيسى إسلام محمد بدونك قبلك يدقمده ضمان وياشا علماء دينك هوينك صحافة شركة أوشو بلارن نوقع من CCCC السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام بعد وقت وكل ما ترك دمنا وهري ضد ضمنا ويهدلين وقت وكمية وحنت أقدر لها ورلا سجارة يضيعني أربع سنين واحد مقطع إن أغنتي الدون اللي إننا بلاوانتي وضوء جنينا هنا وحاول كليا وهالك فكرة وحوية على قبل ما سي لو قرب استاجلها hawsha inoo bilaabantay horumarka oo kaabayaasha ugu horeeyaan in aynu ka faa'iideysano isdhinac taagno tala bixinta tii wanaagsanna soo gudbino sidaana aynu hawsheena ugu wajahnaano oo aynu ahaano dad wejigooda iyo qalbigooda la jiro horumarka wixii horumara waxa weeye dhulkan waad ogtihiin oo gaari waa baa loolan jiray waddaa la dhexanka dhagayo ilaa Boosaasi gashay deked baa laga sameeyey labada mashruuc oo kaliya burburkii waxaanu ka helnay waa ognahayo waxaa ku baxsaday iska daa reer Puntland ee Soomaalida kala ku baxsatay maantana waxaa ku biiray dekado wadooyin airportyo iyo horumar badan oo aan la koobi karin waxaasoo dhan waxay ku dhismeen iskarabtaaga dowladda iyo shacabka oo la shaqaynaya halka aan ka sii wadno waynu fiicannahay وأنت سنوصل دوانا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعو هذين القدماء برلمان Puntland هذا نوعا كسر دويني يا مدحوين بحين دولة Puntland مدن الجنرال عبد الحكيم عبد الله وقرعمي. بسم الله الرحمن الرحيم. dhammaan ka soo qaybgalayaasha shirkan runtii muhiimka ah ee daahfurka wadada eyl oo madaxweynuhu ugu horeeyo waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaamka bacdi waa tiraha waqtiguna ugu yaryahay halkan waxaan marayaa hal arrin baa ka dhiman taan baan odhanayaa dabeedna waa ka baxaya markii aan yaraana waxba maan loo qadayn jirin oo heesaha aad uga qaybi jirin laakiin taan xusuustay waxa weeye xilligii kacaanka hees la qaadi jiray oo la odhan jiray wadadii caddayd cagta saare
ku carhaabiyo والله داون بين قدما هذا انت هذا ضمان كنت ابا نقول فرحسنا هاي شركه كسوق قلقيسه وشر مهم وانا شر runtii qof kasta oo inaga ina gamida ama reer Buntland maalin taariikhiya oo ah sidii laga sheekeynayba muddo fara badan baa jidka la raadinayay maantana kaabigu taagan yahay waxaan rabaa inaan madaxweynaha iyo tiimkii kala shaqeynayay ugu hambalyeeyo ugana mahad celiyo waxaan iyadana rabaa shirkadda CCECC oo runtii wax qabadkeeda ay wax u qabatay Soomaaliya يعني أي تهاي وحقبت مهمة أو وحقولة سيدا الله سبحانه وشركة اللامجة أن معنوها بلد وين هي برعي اسكو على شركة سميسوي وشركة نقول روح أي سميسو معنوها كواليتي أي ركض وحنوجا من هالعين يا هنتي وحقبت كودا أما كي هو أمة الصوماليات أو قبتها أما كان ما أنت أي أمة الصوماليات guud ahaan iyo gaar ahaan reer Buntland oo qabatay waxa ahaaday inaan uga mahad celiyo waxay la tahay haddii aan reer Buntland nahay hawshan iyadii waa hawl soo kordhay horena waxaanu yidhi marka la isu geeyo dawladihii na soo maray haddaad eegtaan anigu markaan laba arrin uma ka hadlay xirfadahan la qodo ee biyaha lagu kaydiyo iyo ceelasha marka intii na soo martay la isu wargeeyo inta aanu joognay 3 sanadood iyo xoogaaga bilood باك بدن كنتي وحقبل قواس عدا يعني إن عن إسكاد نضد مده عن وحب الله يعني مين معها معناه لكن وحن قرية ذات كثير كنا على قرية يوم الصومالية بين دولة الوحب بدن أي قبتين ولنا أي صعدة وحقبل كي دولة كان يكمل هاي وده قال كعيو يبوساس وكمل هاي airport ki kamidi hay dekadii garaaca iyo boosaaso balaarinteeda kamid tahay iyo waxyaabo badan oo wadada ku soo jira haweeye doorashadii waan dhaweyn waxaan weeran lahayn war noogu celiya bi waay mar laba madaxweyne ku soo dhaw babaadii بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baan u salaamayaa dhammaantiin madaxweyne gudoomiyaha baarlamaanka islaamka ugu horeeyaan waxaan u mahadnaqayaa intii soo qaban qaabisay xafladda quruxda badan ee daafurka wadada Eyli Garowe waxaan kaloo ka mahadnaqayaa intii laga soo qayb gashay waqti ugu soo hortay inay yimaadaan waxaan baranayaa wixii la oran lahaa wadada laga oran lahaa waa la yiri wadadani dabcan waxay ugu horeysaa qorshaha dawladda kaabayaasha dhaqaalaha lagu horumarinayo ayay ka mid tahay mid uu ka mida wey in badan baan ku celcelinay muhiimadda kaabayaasha dhaqaalaha ay leeyihiin dabcan idinna waa fahamsantihiin bay la tahay hadda markuu ka hadlaayay Alan Lee oo shirkadda madaxda oo CCECC waxaan rabaa wax yar oo correction inaan sameeyo oo laftigaygu turjumaan baan ahaan jiray marka wax yar oo سعيد لكن الكوفي ما هنا شيء شركة دورت شركة ولاد الجوي شركة بلدان شوكتو قالوا لنا واكل هذا حفيزنا بكفرة هذا أنا اللي يا CCECC أكتوبر الأول يكوي طبعاً كان الوزارة ما نسبرنا نكوضيع هذا أنا مركز تفكر كيسيسو فكر أيوه waxaan idin sheegi karaa runtii in badan reer Buntland ay ka Buntland darsan yahay runtii soo ku fakiray maskaxdiisa aragtidiisa waxaan rabnaa marka dadku inay fakaraan bini aadamku waxa la rabaa
xaaladda uu ku sugan yahay inuu awood u leeyahay in wax ka bedelo waa sababta anagu aan xayawaanka uga duwannahay way kale in badan baan sheegay allah u naxariistay maxamed siyaad barre sida hadda uu sheegayey guddoomiyaha baarlamaanku anigoo ku celinayo oo allah u naxariista loo ducaynayno weliba sababta waxaa ii muuqata puntland oo dekedaa yortaa xuntaa dhaqoshaa booso ku taallay jidkaan dheer aan lahayn waxay ahaan lahayd soo ekaan lahayd baniga ii muuqata haddaan dekadiina yaraydna 18 sananu dowladda 19 sano dekadii yaraydna ciid baa buuxisa oo maalin walba WFP baan soo baranay in loo qodo wadadiina waa burburtay waa jaban tahay oo maalin walba u baahan tahay in la kabkabo wax kaloo aan ku siyaadin iska daay ayagiiba marka waxay ku jireen qeylqeyl iyo dhib marka inaan la nimaano farsamo dhulkayga aan ku dhisano ka faa'iideysano khayraadkeena waxaan ku dhisanaynaa wax waa khayraadkeena wadankanina wax isbedel uu sameyn kara ma jiro haddaan kaabayaasha dhaqaaliga isbedelin shir baan ka imid hadda taana forum la yiraahdo oo madax badan afrikaan isugu timid oo lagaga hadlaayay war sababta annaga oo dhulkan yare hadda Puntland ka fakarto qiyaasto Puntland eeg laftigeeda meesha ay ku taalo istaraatiijigli kaliya meelada adduunka u leedahay ayaa wax badan kasban karta xeebta u dheer baan Soomaaliya leenahay Soomaaliya xeebta u dheer Afrika ilaa Afrika waa qaaradda adduunka ugu qanisan weeye marka la yiraahdo khayraadka dabiiciga natural resources haddana waa aragteen oo meel kasto Afrika ama waa ururaysa ama dib baa ka jirta ama faqriga gaajo annaga hadda fiiri hadda waxaan la cilcilina abaar soo laabato oo sanad labadii sano ma ugu timaada adduunka meel wax la yiraahdo drought abaari ay ka jirto waa Afrika weey abaar iyo gaajo laga yaabaa Asia marka waxaan maqashaan roobab baa floods iyo maaragtay iyo daadad qaar waa maqlaysaa laakiin meel abaari iyo gaajo inta abaari timaado gaajo dadlayso Afrika ku arka haddana waxaan nahay Afrika markii la yiraahdo adduunka waa qaaradda ugu qanisan weey Saudi kartaa marka dad ku fadhiya dahab iyo macdin iyo oil iyo kalluun iyo xoolo iyo beero haddana faqriya xeebaha la isweydiinay shirka layaadii ka mid tahay marka waxaan u baahanay marka in bini'aadan baaraha laga dhigay inaanu fakarno oo waxa iyaga aanu haysana ku qabsano weeye barnaamijkaas weeye waxaanu wadnaa waxaan kaabayaasha dhaqaalaha ka dhisanayna waa isaga haddii aan kaabayaasha dhaqaaluhu aysan dhisminna cid ku imaanaysa cid ku maal gashanaysa cid ku soo aadaysaa ma jirto sababtu waxa weeye qofka maalgashadaha ahi wuxuu u baahan yahay airport ka soo dego wuxuu u baahan yahay jid uu qaado wuxuu u baahan yahay dekadu wax ka dhoofsado wuxuu u baahan yahay amni inta haddaanan haysan daban marka waxaan rabaa farsamadii iyo caqliga la isu keeno oo ah in aanu waxa ku xiga uu aadan ka hadlayay waxay ahayd maaha arrin wax naga qaba annaga laakiin wuxuu ka hadlayay waxay ahayd war markaad kaabayaasha dhaqaalaha heshaan waxaad helaysaan inaad ka faa'iidaystaan khayraadkiina soo saarataan sababta waa ladin imaanaya way u idin sheegay waxaan hadda ka marar weyd waxaan tagay qandala waxaan aaday baddaan raacay anaguna nin ciidadan oo badda aad uma aqaan waxaan yidhi jidkii haddii la qaado jidka waxay qaadanaysaa mise fire labaitan saacadood ku badan bay qaadanaysaa jidka dheer haddii la qaataan waxayna isu jiraan gaalka boosaaso iyo qandara waa 70 kilomitr ama 80 kilomitr wey waxaan weydiiyey daraasad ah buurtaa in la dalooliyo imisay qaadanaysaa waxaa la yidhi 8 milyan oo doolar war inaan buurta washano oo aanu 8 kilomitr hal saac ku tagno 8 milyan oo doolar bacad xumada aadaanu anula jooga adin sheegay adduunka
waxaan u yeeray nin injineer ah oo injineerka sameynaya jidkan ceer daahir ceer gaabo inoo sameynaya ayaan u yeeray wuxuu ii sheegay in ay jirto hal meel oo la yihahdo shimbir caalamiheeda shimbiro oo u baahan in lasoo dhiso oo keliya 1 kilomitir iyo bar kor loo dhiso oo biyaha laga celiyo hataa haddii la dhaafo kabacdina buurta la dalooliyo qandala waa taagantahay waanaad ogtihiin oo dhulkeennii micnaha lahaa oo khayraadka lahaa oo dhulka u wanaagsanaahi wuxuu jiraa dhankaasu jira marka waxaa yidhi 8 milyan bay qandala u baahan tahay waxaan rabnaa marka kollay mashaariicda soo socoto oo runtii ama ayada ha noqoto ama madaaryada kaloo haddaan ka fakarayna baran iyo boholle iyo inkastoo kii boholle waaba yani dirnay oo mashaariicdii waxaan ku darnay sacuudiga ayaantii ay yidhahdaan samaynaynaa haddii ay samayn waayaana kollay farsamo kaleanu heli doonaa ku samaysano marka in dhulkeenna annagoo arag caqliyadeenna iyo yani khayraadkan haysanno ku xisaabtamayna annagaa isku filan waxaan idiin sheegaya marka reer puntland soomaaliya meel maanta horumar ka socdo oo dekada ka socdaa oo jeed ka socdaa oo aerobortooyin ka socdaa puntland baa jirta khiyaartulkaawi ilaahay inaan u mahadnaqno weeye waan rajeeynaa insha allah soomaaliya inta kale inay xasisho horumarna ay gaaraan sababto waxaa weeye horumarka meel soomaaliya laga suubiyo soomaaliya dhan baa ka faa'iidaysanaysa alla waxaa la weydiinaya dekada boosaaso dowladda soomaalida raalli ma ka tahay oo maxay iskugu noqon wada raalli dekada boosaasoyaa iskale soomaali baa iskale sooma waa hanti qaran weeye hanti soomaaliyeed weeye puntland ba ku taallaa mooyaane marka horumarkii meel soomaaliya laga sameeyaahi dabcan waa horumar soomaaliya usoo saaciiday weeye insha allah waa guulaysanaynaa waxaan rabaa marka anagu aragtidii iyo fikirkii iyo in adiinkana mashaariicda annaga waa mas-uuliyadayada ka dowlad ahaan sababto waxaa weeye waxaad noo igmateen weeye hadda cidna anagu mahad uma baahan ilaahay baana kulle maaragtay ka filaynaa wanaag iyo xasanaad laakiin waxaan rabnaa mashaariicdaasi keenideeda waa sahlan tahay communitiyadeeda hirgelinteedu idinkeeda ku xirantahay insha allah waxaan rabnaa marka annaga oo dowlad iyo xukuumad haysaysana inaanu u istaagno in aanu barnaamijyadaasi iyo hawlahaasi mashaariicdaas socota inaanu hirgelino inay waqtigeeda ku dhammaadaan insha allahu guul iyo khayr baan idin rajeenaya aad iyo aad baan umahadsan waxaan rabaa inaan ku dhawaaqa marka in wadadii garoowe ay dafuraan waxaan rabaa inaan kola ku celiyo oo uu sheegay alan translationka siciid waa ka booda waxay ahayd wuxuu sheegay in uu imaanayaan surveyorskii oo consultation la suubinayaan community kasta ay la fariisan doonaan kabacdina wadadii meesha mari lahayd iyo sida ay ku tegi lahayd ay inoo sheegi doonaan insha allah aad iyo aad baa mahadsantihi soo dhawaada wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maantay lagu soo dhaweeyay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ee Puntland kaasoo ay ka qayb galeen mas'uuliyiinta degmada kuwa gobolka saraakiisha ciidanka iyo waxgaradka magaalada Gaalkacyo madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ay safarkiisa ku heliyeen xubno ajnabi ah oo ka socday shirkad dhismo ayaa maantay dhagax dhigay garoon diyaaradeed oo caalami ah kaasoo ay yeelanayso magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in dhismaha garoonka cusub ee Gaalkacyo uusan muhiim u ahayn Puntland oo kaliya balse uu yahay mid muhiim u ah ummadda Soomaaliyeed oo dhan madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in Puntland ay hadda leedahay garoomo iyo dekado caalami ah kuwaas oo qayb ka ah ballanqaadyadiisii hore Gaalkacyo inay tahay centerkii Soomaaliya saas daraadeedna garoonkan muhiim u yahay macnaheedu wuxuu ka hadlayay waxay ahayd in garoonkan dhismihiisu uusan u ahayn Puntland muhiimad u lahan kaliya Soomaaliya oo dhan inuu muhiim u yahay ubuucdi Soomaaliya ku taala Gaalkacyo muhiimadaas gaarka ah ay leedahay airportkuna muhiimadaas gaarka ah uu leeyahay buu ka hadlay anaguna intii ayaan taakiidayaayo ayidaya
dabcan waxay la tahay waxaan xasuustaa bishii October aniga oo jooga London ayaa waxaan ku iri dadka reer Puntland hal sano hal airport ma helayna 2 sano 2 airport 3 sano 3 airport haddaanu maanta isma lahayn waa way hirgalaysaa laakiin dabcan waa riyoonayay laakiin riyadii iyo ba ilaahay noo rumeeyay marka ilaahay baan uga xamdinaqaynaa runtii in uu waxa aan niyadda naga jiro wanaaga inuu noo hirgeliyay runtii aad baa ilaahay uga mahadnaqaynaa meel fiican bay maanta Puntland maraysaa insha Allah waxay ila tahay meel maanta Soomaaliya 3 airport international caalami ee ka jirta Puntland ma jirtaan u maraynaya insha Allah Ellen Lee oo hadlay shirkadda qaadatay dhismaha garoonka cusub ee Gaalkacyo ayaa shacabka Gaalkacyo ka codsaday inay ku caawiyaan horumarinta mashaariicda ay bilaabayaan oo ka mid yahay dhismaha garoonka cusub ee Gaalkacyo. This will really bring a big development and difference for Puntland state. So I appeal to our local community people, our brothers and sisters. Let's work closely, put our efforts together. Let's work and create a brighter and more beautiful future for Gaalkacyo and Puntland. Abdinaasir Maxamed Ali, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Gaalkacyo.